السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام على صحابة الشلن كان كوحدنا دمانتين بميل كستا جبتان سلام بعدي مقال كنا ما تعقو سبسيه قصة عجيبة رنتين عبرة قادة شمودان هذا الشلن كوح سبتا سبسكرايب بتسارس هدي هرنو لجبتين ليت بتسارس سوي مقال هرتت بدوكار يمكن مقال كنا قد قلنا داو شهبون saaxiibayaal soo dhawaada mar kale muuqaalkeenan ama qisadeenan waxay ka dhacday wadanka Masar gaar ahaan caasimadda Qaahira waxaana ku dhacday wiil 14 jir ah wiilka yar wuxuu ka soo jeeday qoys ee noloshoodu meel dhaxaad tahay wiilka yar wuxuu dhigan jiray dugsiyada ka mid ah waxbarashadiisuna waxa ahayd heer waxaan ayuu markiisa arkay inuu nin weyn yahay u garaadsaday ayuu difaaca dalkiisa iyo xiluu ka saaran ayuu isku qaaday wiilkii siyaasadda madaxu la galay kadib wuxuu isku dayay inuu fagaarayaasha ka hadlo fagaarayaasha ka qodbadeeyo kadibna fagaarayaasha wuxuu ka soo gudbay in iskuulku dhigan jiray mudaharaadka mudaharaad ka abaabulo kadib markuu heerka mareeyay waa dareemi kartaa wiil yar oo dhalinyaro ah oo heerka gaaray waxa gashay qab isla weyni iyo inuu dadka wax dheer yahay wuxuu isku maleeyay inuu dadka dhan wax dheer yahay dadkiisa bay u baahan yihiin oo siyaasadda ka marin dhalin karayo balse nasiib darro intii siyaasadda ku mashquulsanaa wiilkii yar wuxuu ku dhacay imtixaankii iskuulka dugsiga sare markii imtixaanku ku dhacay halkaas wuxuu kaga hadhay waxbarashadiisa waxaana halkaa ku seegay waxbarashadiisa markuu siyaasadda u go'ay muddo markuu siyaasadda ku dhex jiray waxa soo ifbaxday ina xubnihii sarsare xusbiyada siyaasadda gabi ahaantood bay dowladdu xidhay markaasna halkaas hankiisi siyaasadda kaga laabtay markuu arkay raggii ka sareeyay xubnihii sare ee xusbiyada siyaasadda la xidhay ayuu isna siyaasaddu ka yara beedhay wiilkeeda hoos buu galay markaa kadib waxa isku dagay imika waxbarasho ma dhigto iskuulkiina waa ka baxay wuxuu galay kulliyadda xuquuqda wuxuuna ka soo dhigtay qaybta abukaat inuu noqday qareen buu noqday caasimadda Qaahira ayuu ka furtay xafiiskaas uu qarash badan ku bixiyay balse nasiib darro xafiiskaasu dad badan kuma soo xirimin kadib wuxuu isku dayay inuu u digorto tuuladii uu ka soo jeeday nasiib wanaag tuuladii ayaa uu la roonaatay Qaahira tuuladii ayuu hanti badan uu ka sameeyay halkaasna dad badan baa ku soo xirmay xafiiskiisa wuxuu qaadi waayay dadkii kiisaska watay waqtiga daadiisu waxay ahayd 35 jir bay daadiisu muddo markii sanad iyo dheeraad uu ka soo rafaaday nolosha siyaasadda markii dambe qareen buu noqday xafiiskiisa galinka hore ayuu ka shaqayn jiray wuxuuna noqday qareen garyaqaan heer caalamiya oo dadka xaqooda u soo dhiciya markuu in badan halkaa ku jira qareennimada waqtigiisa galinka dambe waxba ma waalin wuxuu ku buuxiyay waqtiga firaaqada ee galinka dambe markaa isaga iyo dhakhtarka tuulada xeer ilaaliyaha duqa magaalada iyo ama maayarka ayaa galinka dambe dheeli jiray khamaar ayay ciyaari jireen kadib marka ciyaaraan khamaarka waqtigooda ilaa galinka dambe ilaa markay qoraxdu sii dhacsana waxay aadi jireen guryaha xumaanta lagu sameeyo kadib guriyaas markay ilaa 9 ilaa 7 fiidnimo ay soo jeedaan ayuu halkaas waqtigiisa inta badan ku qaadan jiray ilaa waagu ka baryaado guryaha xumaantu isaga dhex jiray wiilkii yar waa hore iska ilaaw hankiisii iyo himiladii u siyaasadda ka lahaa wiilkii yar aduu calaa kulli hal noloshiis waxay noqotay nolol
khiyaaliya wuxuuna ku ganacsadaan ilbiriqsiyada kooban ee naftiisa u raaxaynayo intii yareeday qareennimada abukaatinimada ka shaqaysanayay ayuu khamri iyo cabitaan iyo guryaha xumaanta laga dhameeyay wiilkii raaduu ka dhammaan waayay markuu halkaa ku noolaa muddo sanad isagoo halkaa guryaha xumaanta isaga jira ayaa waxa dhacday guri ka mid ah isagoo joodo ayuu ku arkay gabadh 20 jir ah. gabadhaas waxa ahayd gabadh maskiinada oo ka soo jeeda qoys danyara qoyskooduna waxay haayeen dad danyara qoyskoodu waxay ka koobnaayeen 2 hablood iyo aabaheed uu dhintay gabadha yar hooyadeena waa islaan curyaamada kadib markuu gabadhii yareed arkay oo maskiinadayd oo aanan ku qanacsanayn meeshan ay ku dhex jirto meeshana waxa weeye guryaha xumaanta lagu sameyn jiray markuu arkay gabadhii yareed oo aamusan ayuu u soo dhawaaday kadib uu waraystay kadib uu la hadlay kadib waxay u sheegtay inay dantii duruufka ee halkan keentay aanay marnaba ku fikireen nolosheeda aan weligeena ku fikireen halkan timaado balse ee dantu ku kaliftay markuu aabaheed u geeriyooday kadibna caruurtoodii yaraad iskuulka waxay kaga bixiso weyday ayay dantu halkan ku kaliftay inay keento kadib waxay wiilkii ayay soo bartay hooyadeedna curyaamad bay ahayd inanta hooyadeed bay soo bartay waxay kaloo soo bartay hablahoodii yaryareed muddo kadib wiilka isagoo xaaladaas ku jira ayaa waxa dhacday inuu wiilkii yar ah u shir baawur galo dhaawac badan ayaa ka soo gaadhay adigu dhiid badan baa ka daatay kadib wuxuu u baahday in dhiid lagu shubo dhiid markii u baahday tuulada uu joodo waxaa dhiiga laga soo qaadaa magaalada marka waqti badan ayay qaadanaysaa intuu gaadhigii soo socdo intaa waqtiga qaadanaysana qofka ayuu intiisa badan uu sii dhiig baxaa marka waxaa ogaatay gabadhii yareed ee uu baarka ku arkay gabadhii yareed ayaa u shubtay dhiiga isagoo balse ma ogeyn markuu u shubtay ayuu markuu habeenka indhaha sidaa u kala qaaday uu arkay iyadoo dhinaciisa jiifta ayuu dhakhtarku sheegay inuu iyadoo dhiiga u shubtay maalintaasay oo xiriirkoodii halkaa ku bilaabmay xiriir baana ka dhex aas-aasmay dhexdooda markuu weydiiyey ku yiri maxaad kuu kalifay inaanu dhiigka ii shubtid ayay ku tiri abaalkii ay ii guday isna maalintii uu ku arkay guriga xumaanta lagu sameeyay gabadha miskiinka ayuu heerkoodii u geeyay ay siistaan cunto iyadana ku yiri ka fogow guriga xumaanta anaa wixii karaamkaaga aan u qabanay hooyo caruurta markuu arkay gabadha yar inuu gabadh yaro daacad tahay oo miskiina ayuu isku qanciyay inuu u guursado kadib saaxiibadii dhammaantood ayuu bandhigay saaxiibadii dadkii kuwii ku dhawaa balse saaxiibadii yaab iyo ama kaan bay ku noqotay ma gabadh saaxiib jirkeeda ka ganacsata oo khaniisada bad saaxiib guursanaysa way ka dhaadhici weyday saaxiibada waxooday dhammaantood waxay ku qanciyeen inuu iskaga fogaado gabadha balse isagu wuxuu ku celcelinayay gabadha yar tan iyo duruuf ayaa ku kaliftay inay jirkeeda ka ganacsato saaxiib balse way ka yeeli waayeen laakiin saaxiibadii mid ka mid ah ayaa tala macquul la siiyey taladuna sida tan bay ahayd tala ahaan gurigu waa mas-uuliyad gaar ah oo qofka keliya ka gooda sidaa awgeed qalbigaaga iyo caqligaaga la kaasho adigu ee wixii kaaga soo baxa ku tallaabso saaxiib ayuu ku yidhi cidna ha u joojin buu sidii uu ku yidhi saaxiib qalbigaaga iyo caqligaaga la kaasho adigu markaa isagu wuxuu go-aan ku gaadhay inuu guursado gabadhii yareedna halkaas ugu guursaday qisadaas halkaasay ku soo gabagabowday marka qisadan cibro qaadashada koowaad aad ka qaadatay bal komitidan ugu reeb waxaan odhan karaa untee cibro qaadasho waxay nagu fulaan bilaa-aadantimada uu sameeyey oo guryaha xumaanta
ina tahay ku kaliftay inay jirkeeda ka ganacsato kadibna uu ka soo dhex qabtay isagu nolosheedii la kafaala qaaday. haddaba bal waxaad ka faa'iidaad u daawaday comment-ida hoos ugu reeb. haddaad halkan ku cusubtaana subscribe basaaras, haddii hore noola joogtayna like basaaras muuqaalku siduu dad badan gaaro. haddaad ugu cusubtaana subscribe saar. inta muuqaalka xidhan sugu yimaano waxaan iga tegayaa amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.